walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaan yeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah uu fiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiintan Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland hadalkii ka soo yeeray kelmadan ka oranaya qodobka labaad waxaan ka hadlayaa dhalinyaro banooni ciyaaraysa oo garoonka laga saaray oo sheekadoodii si khariban loo isticmaalay iyagana kelmad baan ka oranaya intaanan bilaabin waxaan rabaa inaan guul u rajeeyo ciidamada Soomaaliyeed oo la xarbiyaya cadowgooda khaarijiinta ah labada dhinacba dagaal kharaar ba ka socda si fiican baana loo shabinayaa biidnillaahi ta'aalana sanadkii la soo afjari lahaa ayay noqonaysaa Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa iskaashada aad isu kaashada dawladihiina garab istaaga markay timaado al-shabaab iyo al-qaacida iyo daacish iyo mujrimiin khawaarij oo isa soo bahaysato cadow ilaahay ah markay timaado naxariisna yaan loo gelin yaana loo kala bixin kulli hal loo noqdo nimanka ayaan mid laga reebin war nimanka ha igu soo siideynina oo nin ha soo qabanina madaxa ka gura ha ka waasheen fasharid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun bi ilaahi subhanahu wa ta'ala yiri hada u gacan qaadid dhulka la dhig hargaji kalmada hargaji wadaadada isticmaali jiray waxay tahay ma qawa dhulka la siin way baabi waxna ha ka reebin si ay digniin ugu noqoto kuwa kale iyaguna taariikhda u galaan marka ciidamada waxa uu rajeynayaa meel ay joogaanba koonfur iyo Puntlandba dagaalada ka socda inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala libinta naga siiyo guushana aan ka helno cadowgana la baabaasho wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland baa wuxuu yiri haddii itiraaf aan ku helayno Falastiin in la tarxiilo oo dhulkoodii Yahuudi qaadato عداوة انت هلا ويرينا إيرو هذا كوربان كلاني انت انو كفي عيه هيبو إيشيغي وحي إيشيغي انو نين صومالي هي صومالي نمانا آمنسان وانا نين دبلومات وإن بدن كسو شقيه دبلوماسيها وانين أقويهانا PhD دكتور عرو نينك وزيرka arrimaha dibadda ka dhigtay inuu waxa ku hadaaqo waxay runtii noqotay ka daro dibi dhalo askarigi maxaa loo yaabay aqoonyahankiina saayahay askarigiina uu taagnaa saylac baan bixinaya oo gadaya oo ku gadaya itiraaf warnimankan odayaasha ah oo Somaliland siyaasiyiinta ka ah waxay horta u baahan yihiin ninkii diblomaasiga bartay oo ku takhasusay oo joogi jiray oo ka shaqeyn jiray hadiiba uu saan u dhaqmayo ero waadan ogeyn gobol Nigeria kamid ah 34 dawladood inay itiraafeen ma ogtahay Falastiin 120 dawladood plus inay itiraafsan tahay oo dawladnimo itiraafsan tahay dhowr xabo Yurubiyan ku jiraan 3 Yurubiyan ay hadda ku jiraan ay galeen ma ogtahay أنا waxba ka soconayn moogta security councilka lixda wadan oo rasmiga ah iyo 10ka wareegtada ah oo aan joogtada ahayn unanimous decision hadaysan isku raacin China Russia America kulligood hadaysan isku raacin itiraaf lagu siiyay oo dawladda ku siisay horta wax ku herimayso waa qodobka koowaad haddayna inta fahmi karina walaal siyaasadda ka hor leexda dhalinyarada khaldinina dadka caamada ah luminina dadka lugoynina meesha meel ka hooseysa ma jirtaa oo itiraaf laga raadin karo qof kale oo muslina oo wadankiisi xoog laga qaadayo aniga halaygu soo dhamgaray halaygu soo tuuro inta aan bagaarin ma garanaysaa khasaaraha ka imaan kara ba aanan asees garayn see damiirkiinu idin siin kara irow see damiirkaaga ku siin kara in dad la qixiyo adigu ma rabi lahayd
إن أنت الله يدين قحية مال كلا الله يدين كداديو أدول كينا لقاته ما سأقتهاي كبوينا إلو بربرة وصوص عدو كبوينا إيه إسرائيل نايسان كلا هرين بالخسارة هنا عندنا كأيغو كبا سوقا دينا عقب الشعب 2 مليون فلسطينيين على صوت عديوه سيدي أوري ترام ووتر فرونت كدكتو دالحيس ميل انتو ديستو ريال ستيت كدستو غزة ودadaas laamigaas badda saaran uu ka soo saaro guryo aad u qurux badan oo lacag badan ka sameey kaba soo qaad dadkeedina uu soo qaxiyo idinka soo ma ogid inay idinku lifaaqan tahay imaaraadna ay tahay gacan Israa'iil waxa ku xigta dhowr xabo oo Xamaas ku dhex dhuuntay Hargeysa jooga iyo Hargeysa oo la duqeynayo war dadka halu goynina qof idin kan xayaana ma jiro markaa adduunka oo dhan Soomaali cid kan haysa ma jirto muslim ko dhan ba ku nabcaysanaya arabta iyo ajamta inta shahaadata waa ku laanadaya waxa ku gadatay Mareykan ba ku itiraafay ama Israa'iil so what haday China aysan ku itiraafin waligeed adduunka inta saaranta itiraafu irku ku jira waxyaabaha wax lagu itiraafo horta soo barta oo soo akhrista waa dad kala diina dad kala af ah dad kala dhaqana dad kala midaba dad kala cirqi iyo sinji ah dad noocaas kala go'ah oo la itiraafa laakiin dad isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan iyo isku midab iyo isku wax walba oo sinji iyo wax walba wadaaga baan itiraaf raadinaya intaan kala gooyo waxa kaliya aad ku heli kartaa itiraaf oo kaliya waa Soomaaliya inta iyadu campaign garaysa tagtay UN-ta tiraahdo waxaanu rabnaa in Somaliland aan gooyno oo wadan gaar ka dhigno oo la itiraafo inta kaliya ku heli kartaa haddaadan inta fahmi karin adigii diblomaasiga ah horta waa nasiib daro imaaraad waxay u soo wadaa soo qadara Puntland xaafuun bay rabtaa inay siiso ma dagaalkii marka Falastiin ka jiray iyo Shaam ba waxa loo soo raray Soomaaliya halka loo soo wadaa ya ero inta waa igala Soomaali sanayd intaasna waa igala aqli badnayd intaana waa igala aqoon badnayd nasiib daray ku tahay maanta inaad askarigi ka sii liidato askarigi inaad ka liidato Ethiopian itiraaf ka raay Ethiopia kun jeer haday ku itiraafto xagee itiraafka u gaaraya Israa'iil haday ku itiraafto iyo America xagee itiraafka u gaaraya where China waligeed itiraaf ma soo wixii Mareykan itiraafo iyo Russia the only way oo UN to ay ku aqbali karto oo General Assembly-ga inta la geeyo kulligood lagu aqbali karo oo Security Council-ka oo unanimous ah wixii uu isku raaco weeye oo kaliya ma jirto meel kale oo wax laga itiraaf marka nimayow itiraaf ba idinka cararay waa u gumowdeen meel ba meesha ka sii hooseysa u gasheen siyaasiyiinta reer Somaliland walaalayaal dadka ka xishooda dadka uquushooda ku ciyaarinina ceebaynina umada Soomaali sharafteeda ku ciyaarinina stage-ka caalamiga Soomaali baa tiina hanajaasaynina magaca hanajaasaynina aad hanoo soo jeedaan dad muslimiina oo Ramadaan la leynayo wasiirtu soo istaaga soo tarxiila aniga guriga ku soo dham garay khasaaraha labaad oo iimaaniyaan idin sheegay Falastiin waa nimanka la yaqaan waxay yaqaanaan dagaal baa jira hadaa keensataan wallahi billahi idinkoo yaacayo qaxootiyaad waxaad soo galeysaan garowga ordaya iyaga la wareegaya meesha yaa la itiraafay marka meeyga la itiraafay mise Falastiin baa dhulka la siiyay mise Falastiin oo halka la keenay oo xuutiyiintu inta u jireen ba intay isku xirmaan meesha idin maraysa oo nabadi ka dhacaysa xagee maskaxdiinu maqaad buu ka dhargay ninkan hadduu isagu qaad ka dhargay isna maqaad buu cunay maxaa ka khaldan sidaan iyo nolol maahee sida isu dhaama kalmada intaasan ka horeeya waliba aad baan u xeerinayaa hadalla badan oo aan sheegi kari lahaa baan ka xishoonayaa oo ka warwareegaya sida isu dhaama nimayo ceeb weeye waxyaabaha qaarkood dadkan Soomaaliyeed musiibo hor leh ha u keeninina hadaa ka cabanayseen 30 sanadood 40 sanadood aqeylinayseen oo lahaydeen waana la xasuuqay oo dibana loo geystay ma idinka dad xasuuqay oo raba in ilaa Falastiin yeelimaysa inay qaxdeen xoog in diyaarad lagu saaro oo 2 milyan oo qasad degan milyan ila la idinka dartiin inta kale xoog diyaarada lagu saaro miyaa ka shaqeynaysan ma xasuuq kalaad marka idinku qayb ka noqonaysa aaway dhibaatadaas qof dhibaato ka cabanayo haddana dad raba inuu dhibaato u geysto waxbaa khaldan badan dib isugu laabta
sheekaysta dadkiina intellectualiska aqligii Soomaaliyeed hargeysu yaala isku noqdo waxaanu nama qabatee nimayo sida isu dhaamo kalmada intaasan ka oranay culimada leeyihiin aqoonyahan baaleediin culimadiina maxay uga aamusantay qadiyada ninka waxay ahayd maanta gabar yar oo meel ka hadashay masaajidada hargeysa iyo burco iyo ku yaalo oo dhan berbera khudba lagaga akhriyay khudbada jimcadahan soo socota ninka lagu soo wada qaato culimaduna ha ka digeen waxaan aan ka hadlayno waxaas iyo wax ka sii badan oo aad og tihiin weeye waxa aad ka sheekeynaysaa oo weliba ma haddana ceebta keliya unbaa na raacdeen mahmaah baa jiri jirtay waxaasna ma helin warna i raac meeshii bay taagan tahay ceeb unbaa naga raacday hadalkaa ninkaa wasiirka ah waxaan ka faa'iidayna lama arko haddii xataa maraykanka iyo yahuudaba ictiraafaan iyo ingiriiska iyo inta ku jirta oo kale haddayna ictiraafaan hal dowladoo diidaa baa ku filan marka nimayo sida isku dhaama diblomasiga dib u daraaseeya intaa kelmadda intaasa ka oranay Mill Twin Towers oo ka kooban 2 tower waxa uu ku yaalaa xaafadda Parkland gaar ahaan Ring Road oo haysto saas u leeyahay timaha waa dheeriin saa oo geesaa u haysto baa meel walba laga soo gaaray nimanka mulxidiinta oo diinta nacab Soomaalida waxa ku jira dad aad u badan oo diinta nacab nimankaas waliba wadaad khamiis qaba oo imaamad ay u saaran tahay waxa la igu yiri waa wadaadkii Cabdirasaaq Jiir warsaaqjiir wax badan oo wanaagsan buu umada u qabtay iskuul furay garoonka isaga u dhisay laakiin xigmad xumo ficil yar oo khaldan baa waxa laga dhigayaa wixiisii oo dhan waa la tuuraya wanaagiisii oo dhan waa la baabi'inaya dhulka la jaraya isaga marka waxaan leeyahay marka koowaad walaalow timuhu in la baxo waa sunno ceeb ma haddii fashionku soo raaco sunnada hadda mar dhexe waxa gaaladoo dhan la bixinaya madowga iyo ciyaar suuqa garka ma iska xiiraysaan marka حالس خميسي هذي قاتان عيال سوق ودمي ملقى قوري يا خميسي هذا وما سنة النبي قوي وقدر كلامه والنبي قلت ما دار بوها قربها وجوه تما دار إن لا لبحه عيال كان بدار بابا هدر وذا قلي دونته أنت يسن صدق قارينه سومالي بدار بابا قلي كتير داي أنت يرتاهو أي هايستان تما هذا كوبا شالين فرحك خاله هنا مشكلنا هو قد كنينا تما كوا عيال سوق وعنا كي دبرك فنانادو ciyaar suuqnimo ah afkayga aan soo marin karin ay ugu qoranta Muqdisho maraya iyo kuwa masaajid hortiis hoostooda fiirinaya hoosta ay xanuunaysa leh Soomaaliis kuwa way ku u baahan in shaqo laga qabto maaha wiilashan banooniga ciyaaraya oo sharafta iyo quruxda ka muuqato surwaal dheer bay waliba ku dheeliyaan I believe surwaalka xataa dheer in lagu khasbay hada waxyaabaha aadaabta ah dadka dhalinyarada ah yaan diinta ma garanaysaa lagu nacsiin dad badan oo diinta ka baxay baa jiro dhalinyara waxayna eedeeyaan dugsiyada iyo macalinka iyo wadaadka oo aan marar badan xikmad ku shaqayn fiiri nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidkiisi waa buqcada labaad ugu fadli badan caalamka ayaa nin ku kaajay Araabiya gudihiisa masaajid gudihiisa kaaj dad baa ku yaacay qeyliyay فزجروه ويري صحابي ولا هندده مركز النبي وحو يري وردايه دايه هذا ما يستي هورتو بل كاليس هبكت مركو كاد شيء هذا هو مساجد دحيسي وبقعدي لباده ugu fadliga badneed caalamka nabi khayru khalqi ilaahi ba dhex fadhiya buu kaadi la soo doontay wa khalad ka dhacay wa gaf ka dhacay bini aadamku siisaba wa khata khayru khata'ina tawabun kullu ibn adam khata' بن هذا واقفة كف كاس ورقلي نكا صحابي رضي الله عنه نبي وتعليمي وحير حلك محويها هلا حليه ماشي هلا هقاتشي حكمة بالو بهي عقلي هلا هقاتشي ماشي بيه هلا وشبه خلاص كذا الشيء كذا لما تنجاسي تكت هاي من كينس دبعت له مقيس من كاسي عرضي يعيلكي وضدك أوقاضي وهي ربيو أنا نحريسو محمد نحريسو عيد كالي نوران حريصن هذا نيكا سواني صحابي وانا نين odayo caaqila waxay la gaartay inuu yiraahdo cidna ilaahu haw naxariisan markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laqad hajarta wasi'an waxaad yaraysay oo ciriirisay mid wasi'a mid inna rahmati wasi'at kull shay rahmadaydu adduunka dhan bay gaartay meel walba shay kastay gaartay uu yiri baad adigu ciriirisay oo aniga adiga ugu koobtay
مركز تعليمي حتى ويلشوا هدي خلديهين أو تموه أي خلديهين خلد بماها وبالصنة وأنا لا يقدرين مساس الله يمرد قرينيا بابليكا هو يضد يا أبوه دي أي داوانا يعني أصحابته دي لقى صار يا ويل يرو بنوني عياري تماها قادر درتاد بح أما صوحيرو أرنتاس دول موي عدالة دروي دقن معها دعوة نبكوتها حتى هدي أدربتيد إنا فلسيد behind the scene عيد كلا استعمال أدو خميس قباء عمامد وطا ويل يرى تماها مدحها كودكي حاو تابانيسا مدحيسا ماذا اسكاله سيقال مدحيسا له حرمك قولي احترامك عليه وأنا ترى وأنا وقصشا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عياري تري اللي يرى ولا شيء كيسن تري أنت كوي ما دين ماشي عاد محاضرة وجيدين لهاي ودين تجعليسين لهاي ودين لهاي ولا عليها الإمادة والله تكتاه جعفريين تماشي فرين وأن كل لغة إنه ما كان نيروبي ما كان كل لغة ضد بدنا كل لغة هبينك يا مالتي وصار له لغة 24 hours هبينك منا يبال الحرة توان كان الحرة هبينهم إلا صباح يأرورتين والفرا أنت ضد باللغيني حتى نايقهم باللغيني أو دلقاتك تعود آوي دلقاتك تعود مسلم يقالوا نايقهم قالوا حتى لغيني موجودة أو دلقاتك يتولرنسي دعوده مهري دعوده حكمت بأوباهن تهاي هل دايو وهل فايدة يستي دعايد إيه ضرورة السيدة أي وبه شالي يعني ميل والبو تيك توك وقلني كو إسلام نعيبك عنك كوها هذا هو فرن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية قاعدة دم بالك دم بالولي يسد الذريعة وهي عيب كينية ولا حرية ولا شرية موجودة ولا دبولية ميل كستو عيب كسر دي كرتوا لجفينية دينتا ولا دورية ولا إلالينية من كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدو إلالي عقليس إيه حكمتيس إيه قلبيس إلالي ولاش يرك قلوبته هذا هلا إلاليو تما هدير إن لقوا عيارنا وهذا الدين maybe إن أفرنا مال قوة تما هدير كليه أما قوة حقها لقصر حيريه أي كو عياران maybe إن نيروبي إن قرون وفرنا and discrimination لهاي تما أما تمو أما كو شرنا هذين أما كو دير هذين أما كو قابنا هذين كو عيرنا هذين تما هذا إسكال تماهاga adiga iskale wiilka yarka timihiisa isaga hale soo doonuuna u xiran kara cid u diideysana ma jirto waxyaabaha aadaabta ah waa tacliimtani walaadada waa tacliim masaa'ilka ku adkaysan dadku xaraan leeyihiin waxa xataa arkay hadda koor mid yiri qofkii jeegada xirta waa magacaas magac khariban oo aan rabin inaan dhaho wajida fiiri aadaabta jamhuurul ulama waxay qabtaa masaa'ilka aadaabta ah نهي جودو إنه للتنزيه هاي أمر كودو إنه للندب هاي معنى هذا واحد هاي نهي جودو ديد ماذا مسائل كأدابته حرام معها وكراهيه هاي أمر كسو أرور مسائل آدابنا معوية واجب معها هاي وللندب والسنة سنة محل هذا ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وهي قفكي سمعيه isagoo ilaahay ugu dhawaanaya ajar buu ka helayaa qofkii aan samayna loo ciqaabayo la weydiin maayo karaahiyaduna waa cagsigeeda waxa weeye ma yusaabu taarikuhu imtithaalan walaa yucaaqabu faaciluhu qofkii sameeyana lagu ciqaabi maayo oo dembi maaha oo dembi ka xasilay waa karaahiyo qofkii ka taga oo ilaahay dartii uga tagana ajar buu ka helayaa karaahiyo iyo sunno That's it. واجب يا حرام مصو قلان مسائل كأدبك آدابك أو سلوكيات كقفك يلبسك يسوق صعني وحا قفك سجاس كله دينتنا دنك مره وحا حوقنا ما يسارن بركة أي قبين صحابة وبركة قالوا عقبتين أبو جهل يا نبي قص كل ربي قبين صلى الله عليه وسلم وحلك لا بدل أنا معه مركة وحيابها يريروا ما ركتي لغوا عدد كيني يدتكو دين تلقى ساري ماذا هيبتو آدي وبدن تاهي